الدنيا كان عندنا بين هدي عربي بدوده هذا مسلم قدن ما warbaahintan ay leeyihiin raashinka Sputnik ma la yiraahdaa ay waxay soo saareen taqriir waxay yiraahdeen ماذا سيحدث إذا اتحد العرب ما حد دوني كان عندنا بين هدي عربي مدوده هذا مسلم قدن ماها وانت عرفتها هذا هدي عربي مدوده ما صوبح لها هذا سيدة قضبة صوص دائما لها هدي عربي مدوده الناتج القومي GDP وحصار كوطنك وحنا قندونا 5 تريليون 990 بليون دولار ونقندونا يعني إنتاج كده محلي وحصار كمركز عرب لا يسكت روح نقنيا حوالي 6 تريليون ودو سنة كيبا وحنا بكبدنا ندونا قرب إليه مريكا يا تشاينا يا الاتحاد الأوروبي مركز وطن كأفراد الدنيا وقول قالوا وين بين نقندونا dhulka ay degayiin intay leegtahay haday isku darsadaan bay dhaayeen ta carabta sheegata 13 milyan iyo 500 oo kun oo kiiloomitir murabbac bay leeyihiin dhul ah sukaanta degani way misadadkoodu waa 385 milyan wadanka saddexaad ee dunida ay noqonayaan China iyo India oo qura carab ka badanaysa marka la isku daro wadanka saddexaad ee dunida ay noqonayaan ciidankoodu intuu leekaanayaa bay yiraahdeen ciidanka carbeed bay yiraahdeen waxay imika haystaan hadii la isku daro 4 milyan oo askari 9,000 oo diyaaradood oo dagaal 4,000 oo diyaaradood oo helicopter 19,000 oo dabaabadood iyo 51,000 oo gaari dagaal bay haystaan bay yiraahdeen waa inta inagu isku dildilayna la isugu duulayo waa ciidamada dunida ugu xoog badan wax ku dhadhoobay soo baxayaan dhulkooda beeruhu muxuu noqonayaa bay yiraahdeen 84 milyan oo hektar ayaa Suudaan oo qura ka abay yiraahdeen dhul beereed la beeri karo taa macnaheedu waxa weeyaan bay yiraahdeen Suudaan hadday beertaan 760 milyan oo tan oo sarreenay soo saari karaan sanad kasta 370 milyan oo neef oo ay ku beeri karaan 410 milyan oo neef oo ariyay beeri karaan 850 milyan oo digaag ay samayn karaan waxay yiraahdeen saxaraha Liibiya oo qura boqolkiiba 8 ka mid ah hadii lagu xidho maxaa la yiraahdaa solar system hadii lagu xidho boqolkiiba 8 saxaraha Liibiya kaliya 20 milyan oo megawatt hour buu soo saaray yani dunidu leeyd uma baahna saxaraha ku yaala Liibiya 8% kamida hadii loogu xidho bahalkaasi dunidu waxay nal u baahanto dhan iyaga sabalay gareyn kara bay leeyihiin waxay tilmaamaan shidaalka dunida 24 milyan oo barmiil bay maalin kasta soo saaraan macnaheedu waxa weeyaan waxa shidaal dunida laga soo saaro thuluthkeed ay carabi soo saartaa wax ku dhadhow zakada bay yiraahdeen xoolahooda 2.5 ka ah xoolaha maxfuudka oo qudhe bangiyadooda yaala hadii laga bixiyo 29 milyan 29 bilyan oo dollar oo zakada sanad walba ka baxaya iyagu dee zakada cid la siinaya ma yaqaaniin xaqi dhismaha ula kaceen waxay yiraahdeen hadii dhismo lagu dhiso sanad kasta waxay dhisi karaan bay yiraahdaan 25 magaalo oo min 1 milyan oo qof ku nooshahay oo 10 dhakhtar oo midkiiba uu qaadi karo 550 sariirood oo leh 20 iskuul oo iskuul kasta uu dhigan karo 3,000 oo arday oo leh 3 madaar oo 10 milyan oo qof sanadkii ka soo degi karto oo leh 7 jaamacadood oo jaamacad kasta 25,000 oo qof dhigan karto yani xoog carbeed waa ka waa carab qurayn ka warramayna muslim kama warramayno 68 dawladood oo muslima jira 56 kamida ba ku jira qoladii maalinta dhaw jiraysay taawun islaamiga kamida masaaxada dhulku almost wala 230 milyan oo kiiloomitir murabbac marka la isku daro muslimiinta idan ayuha al-ikhwa
xoogeenna inaynu sida awrta aakhira aragna maahay waxaynu u baahanay inaynu ummadeenna xooggeeda tusno intay dunida joogaan haddaanay ninna u baahnayn caalamul islaami nuclear power wuu haystaa oo aqoon-yahan wuu haystaa oo dhallin wuu haystaa oo dhaqaale wuu haystaa oo dhul wuu haystaa oo xoolo wuu haystaa oo wax bini aadam uga baahan yahay dunida ku nooli ma jiro aadanaha kale wuxiisoo dhan wuu ka maarmi karaa